بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوديال ميل والبو aad joogtaan halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka daawadaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo barnaamijkeenan qodobada aynu diradda ku saari doonno haddii Allah awood leh u raali ka noqdo waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaaladii ugu cuslaa oo ka soconaya gudaha wadanka Ethiopia diyaarad dagaal oo ay lahayd dowladda Eritrea oo la soo riday waxaan idin haynaa xog iyo macluumaad dheeraad oo arrinta ku saabsan ee daawadayaal mar kale soo dhawaada daawada fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir fadlan channelka subscribe noo saar faragan balaalka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa dagaaladii ugu qaraara ayaa ka soconaya qaybo ka mid ah waqooyiga wadanka Ethiopia waxaana dagaaladaas ay yihiin kuwa u dhaxeeya ciidamada huwanta oo isugu jira ciidanka federaalka Ethiopia ciidamada maamulada Anfarta Amxaarada iyo kuwa Eritrea iyo sidoo kale ciidanka TPLF oo dhinaca waxaana dagaalka uu yahay mid aad u qaraar isla markaana waxaana u muuqdaa dagaalkan in maanta uu yahay mid aad u qaraar marka loo eego toddobaadkan dagaaladii dhacayay waxa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in diyaarad dagaal ay soo rideen TPLF lagana soo riday ciidamada Eritrea diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah waxaa lagu soo riday dagaalkan ka socda dhinaca Zalambesa diyaaradda ayaa lagu soo waramayaa inay leeyihiin ciidamada dowladda Eritrea dagaalka ka socda xuduudka Eritrea iyo Tigray dhinaca Zalambesa ayaa weli waxa uu muuqdaa mid aad u sii holcaya waxaana shalayto inteena daawatay barnaamijkeena ama barnaamijkii xalay ka baxay marqaati TV aan idinku sheegnay in diyaaradaha dagaalka Eritrea si buuxda ay u soo galeen dagaalka taasna waxa ay keentay TPLF inay mid ka mid ah diyaaradahaasi dhulka soo rido dagaalyahanada Tigrayga ayaa waxa ay warbaahintooda ku faafiyeen diyaaradan oo uur iyo olol isugu darsamay isla markaana dhulka ku soo dhacaysa isgaarsiinta ayaa ka go'san aaga dagaalada ay ka soconayaan marka laga reebo dhinacyadan guulaha ay soo kala tabinayaan ma jirto warar madax bannaan oo arrimahan xaqiijin kara Eritrea ayaa dagaalka si buuxda u soo gashay kadib markii ay u yeertay ciidamadeedii keedka ahaa kuwaas oo iyaguna dagaalka soo galay ulijeedka ciidamada Eritrea dagaalka ay sida buuxda ugu soo galeen waxa la leeyahay waxay ka dhigan tahay inay doonayaan inay soo abjaraan TPLF gabi ahaanba gacantana ay ku dhigaan guud ahaan gobolka Tigrayga iyagoo sheegaya markaas inay caawinayaan ciidamada dowladda federaalka Ethiopia geesta kalena militariga Ethiopia ayaa waxa ay wadaan iyaguna dadaal xoogan oo ay ku qabsanayaan deegaano badan oo kamid ah gobolka Tigrayga inkastoo iska caabin ay kala kulmayaan ciidamada TPLF dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hadlayay waxa soconaya waxa uu yiri si Ethiopia looga badbaadiyo burburka nafta iyo maalkaba dal ahaan loo sii wadana si ubadkeena u dhaxlo Ethiopia daacada oo nabada waxaan u qaadanay doorkii ugu dambeeyay ee difaaca dagaalka difaaca ee aan weli wadno waa mid ku wajahan gudashada waajibaadkeena taariikhiga ah iyo in aan danaha qarankeena ka ilaalino qatarta sidaasi ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa geesta kale ugu baaqay ciidamada qalabka sida ee Ethiopia in ay dulqaataan isla markaana guushu ay tahay mid u soo dhow ciidamadeena geesiyaasha ah ee dalka badbaadinaya waxaan idin leenahay dulqaata oo sabra waxa soo dhow xilligii guusha Ethiopia way idinku faanaysaa waana idinku faani doontaa jiilka soo socdana meel ayaad u gali doontaan oo waxaad noqon doontaan kuwa ay ku daysadaan hadalkan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu muuqanayaa in dowladda Ethiopia ay gabi ahaanba soo xirtay albaabadii wada hadalka isla markaana diyaar ay u tahay inay soo abjarto kooxda TPLF oo dagaal qaraar uu hadda dhex marayo iyaga iyo ciidanka dowladda geesta kalena dagaalada u dhaxeeya ciidamada huwanta ee dowladda Ethiopia iyo xogaga Tigrayga waxa ay ku sii fidayaan deegaano kale oo hor leh dagaalada ka soconaya dhanka waqooyiga gobolka Anfar ayaa lagu soo waramayaa inay ku sii fidayaan aagag cusub kumanaan shacab ayaa ka soo qaxay dagaalada ka socda Abala ilaa iyo Berhale ee gobolka Anfarta dagaalada ayaana sii cuslaanaya iyadoo ciidamada huwantana maalmo ka hor furmo cusub ka furay gobolka labaad ee Anfarta Zone 2 balse xogaga Tigrayga ayaa aagaasi ku soo daadgureeyay ciidamo ama dagaalyahano aad u tiro badan furmo badan oo dagaalka ay ka socdaan ayaa lagu soo waramayaa inay aad uga sii darayso xaaladda gobolka marka la eego dagaaladan iyo sida ay u soconayaan ciidamada dowladda federaalka Ethiopia waxay u muuqanayaan kuwa doonaya in gabi ahaanba la soo afjaro jabhadda TPLF sababtu waxa ay tahay haddii TPLF hal aag ama laba aag oo kaliya lagala dagaalamo waxay ka dhigan tahay inay heli karaan ciidamo tiro badan oo labadaasi aag difaacyo looga dhigo laakiin markii lagu furo in ka badan 10 aag waxay keenaysaa ciidamada TPLF inay awoodi waayaan
aagaasi oo dhan inay wada difaacaan sababtu waxay tahay tirada ciidamada oo aad looga badan yahay iyo dhanka hubka sidoo kale inkastoo hadda hub badan la sheegayo inay heleen TPLF oo dhanka Suudaan looga soo dusiyay haddana warar kala duwan waxa ay sheegayaan in ciidamada TPLF maanta dagaalada soconaya aad looga gacan roon yahay marka la eego sida ay wax u wadaan haddaan ku laabano dhanka xadka Eritrea iyo sidoo kale Tigreega dagaaladii xaggaasi ayay TPLF isku dayaysay inay ka difaacdaan dhulkooda ciidamada Eritreanka ah hasaate Eritrea oo dagaalka si buuxda u soo gashay ayaa ku soo siqday deegaano badan oo gobolka Tigreega ka tirsan saraakiil ka tirsan TPLF ayaa sheegay in Eritrean kuljeedkooda uu yahay inay qabsadaan dhulkooda ilaa iyo maqalla ay ka soo gaaraan dagaalada aanay joojin doonin meesha waxaa ka baxday gabi ahaanba wadahadaladii la saadaalinayay in dhinacyadan uu dhex mari doono islamarkaana lagu dhammayn doono wax walba miiska wadahadalka dowlado fara badan oo ay ugu horeeyaan kuwa gobolka ayaa baaqyo caalami ah u dirayay TPLF iyo dowladda dhexe ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hase ahaatee baaqyadaasi dhammaantood dhagaha ayay ka fureysteen waayo dagaalada ayaa socda xaaladuna waxay maraysaa meel quusa wadahadal waxaa la galaa marka xabadi ay joogsato askar walbana booskii lagu ogaa ay joogaan laakiin hadda taasi waa ay ka gudubtay ciidamada ayaa isdhex galay waxaana daadanaya dhiig badan wadahadal warkiisa daa maalmahan dambe gaar ahaan 48 saac la soo dhaafay dowladaha Mareykanka midowga Yurub iyo xitaa midowga Afrika wax war ah waa laga waayay maadaama baaqidoodii hore aan dhag jalaq loo siin hadda sheeda kore ayay ka daawanayaan waxa ka soconaya gudaha wadanka Ethiopia lama saadaalin karo dagaalka Ethiopia in uu ku soo gabagaboobi doono maalmo kooban maadaama hadda xaaladdu ay noqotay mid aad u adag oo dagaalka uu xoogeystay iyo in sanad kale uu qaadan doono sidii horeyba u dhacday laakiin dowladda Ethiopia sida muuqata waxay sameynaysaa abaabul ciidan oo aad u ballaaran oo ay ku doonayso inay ku qabsato aagag cusub oo hor leh isla markaana ay gacanta ku dhigto guud ahaan gobolka Tigreega maadaama dowladda Abiy Ahmed fashil iyo ceeb ay ku noqon doonto haddii dagaalkan bilooyin dheeraad ah ama sanad uu ku qaato TPLF hubka ay hadda heshay waxaa la saadaaliyay in ilaa 2 bilood ama bil iyo bar ama 45 cisho dagaal culus ay ku gali karto wixii ka dambeeyana TPLF laga yaabo inay ku dambeyso dhanka buuraha oo sidii horeyba u dhacday ay isaga baxaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigreega tusaale waxaa la leeyahay ama falanqeeyaashu ay sheegayaan haddii ciidamada TPLF laga qabsado magaalooyin ka tirsan gobolka Tigreega sida magaalada Shire Adigraad iyo magaalooyin kaleba in ay noqon doonaan kuwo dib u gurta sababtu waxay tahay magaalada Maqale oo ah xarunta gobolka Tigreega marnaba TPLF ma doonayso in lagu dhex dagaalamo sababtu ay tahay waxa ay diidan tahay magaaladaasi in la burburiyo haddii magaalooyinkaas waaweyn la qabsadana TPLF waxay ku qasbanaan doontaa dagaal la'aan inay isaga baxaan caasimadoodii Maqale dagaalkana halkaasi ay dhanka guusha ku raaci doonto hubanta ciidamada dowladda federaalka Ethiopia horkacayaan daawad adigu aragtidaada fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu rab wixii ku soo kordha dagaalada Ethiopia wararka iyo barnaamijyadeena dambe marqaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah awood la raali ka noqdo barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka oo naga intaas barnaamijkan mid ka xigay intaan ku kulmi doono nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh